soo dhawaada xilli cusub mar walbaba waxaan ka hadalnaa macdanta waxaan uga hadalnaa waa in dadku wax fahmo oo waaqaca uu xun kala socdo qofkuna uu gaari karo heer bilow ah inaanu gaarsiin karno oo uu bal naftiisa wax u dhadhamin karo sidoo kale dadka nala shaqeeya way tira badan yihiin aad baan uga mahadcelinaynaa annaguna si wanaagsan ayaan ula shaqeynaa inta markii laga yimaado waxaan mar walba kula dardaarmaa dadka macdanta ka shaqeeya horta halkan maantay waxaan tusaale ka bixinayaa macdanta halkan waxaa ku sawiran dhoobadaasi waa dhoobo gaduud ah waxaa dhagax la socda ayaa maraya inta badan dhoobadan meelaha dhulka carra gaduuda leh meelaha biyuhu maraan ayay ku jirtaa dhoobadani ee buuraha iyo togoga cirifyadooda ah dhoobadan inta badan waxaa la socda macdano tiro badan macdanahaas si gooniya baan uga hadli doonaa laakiin dhoobadu midabkan kaliya ma leh waxay ka kooban tahay midabo dhowr ah marka ay midabo dhowr ah inay ka kooban tahay tusaalaha waxaan u bixinaynaa dadku inay fahamaan waaqica dhabta ah sababtoo ah dhoobadaasi waxay tilmaan u tahay astaan macdaneed haddana macdantu way ku jirtaa laakiin dhoobo kasta midab gooni ayay leedahay hadda tan oo kale ayaduna waxay ka turjumaysaa midab kale oo gooni ah sidoo kale midabo kale oo tiro badanna ayagana waan arkaynaa tii hore gaduud bay ahayd tanina waa midab cagaar ah midda kalena midab kale ayay yeelan doontaa xaqiiqada dhabta ah waxa weeye dhoobo kasta mid macdan baa ku jirta macdanta ku jirtaana intaas macdanood ayay ka kooban tahay qofku wuxuu ku heli karaa qaacidooyin tiro badan horta dadka ardayda ka mid ah tiimka qofku waxaan ka codsanayaa marka uu wuxuun arko inuusan waxaa ku kadsoomin kaliya ee uu xiriir ku soo daro oo yiraahdo waxaan sidee baan ka yeelaa asagu markaa wuxuu xuquuq gooni u leeyahay sharaxaad kumbuleeda in la siiyo qofka kale ee aan markaas ka tirsanayn tiimka ardayda ah ee asagu kamida dadka daawadayaasha asxaabteena kore oo aanu ayaga laftirkooda taageerno asaguna wuu ila soo xiriiri karaa laba qaabna wuu samayn karaa inuu isdiiwaan geliyo oo ardayda ka mid noqdana wuu samayn karaa inuu markaas la talin kooban oo qaybta kaliya ku saabsan oo $10 laga qaadayo markiiba inuu la baxana awood buu leeyahay oo qaabkaasan ayagana oo la shaqeynaa marka midabkani waxa ku jira 3 macdanood baa ku jira midabka gaduudnaana waxa ku jira 2 macdanood oo kala ku jiray midabkan kalena 4 macdanood baa ku jira oo midabka hore wuxuu ahaa dhoobad dheeha buu ahaa oo dhagax la socdo midabkii labaadna dhoobad dheeha oo dhagax la socdo buu ahaa oo dhagaxa dushiisa ku dahaaran midabkanina waa dhoobo waxa weeye hoosna dhoobo ka korna fadalka dhoobo leh ah marka saddexda dhoobo markii aan soo eegno saddexda midba macdan buu leeyahay midda noocii hore ahi oo gaduudka ah waxa leh meelaha biyuhu maraan baale oo togoga iyo meelaha maaragtay dhabiinada biyuhu ka soo ragmadaan cirifyadaas ayaa sameeya midii labaadna nidaamkaas kale ayaa sameeya oo dhulka inta badan qoyaan ku badan yahay meesha qoyaanku uu ku badan yahay baa cagaarkaasna sameeysa midana meelaha biyuhu fariistaan ayaa sameeya sida la adligeed 3 dhoobo oo 3 kalara weeye waxayna kala qaadanayaan 3 magac waxa ku jira macdan iyo mawaa'id badan dadka Soomaalida ahi oo aan ka dhashay ee aan jecelahay meel kasta ay joogaanba caqabad baa haysata caqabadaas oo ah koow qofku intuusan aqoonta maal gashan ayuu muruqa maal gashadaa qofku intuusan xirfadda baran ayuu dhibta isbaraa qofku inta uusan xog rasmi helin ayuu hawl rasmi qabtaa taasina waxay kulansiisaa hanjab maskaxeed khasaarin awoodeed khasaarin dhaqaale iyo waxay beertaa
hanjab ummadda guud ee uu ka tirsan yahay ama uu ku xiran yahay taasoo u aqoonsata macdantu markuu qofkii macdanta doonay asagoo farmaran u yimaado ama daruufi ka muuqato inuusan waxba soo faa'iidin macdantana aan waxba laga faa'iidi karin taasi marka waxay ku tahay dadka Soomaaliyeed dhibaato aad culus bay ku tahay aniguna kuma faraxsani laakiin waxaan xaqiiqiyan sheegayaa in arrinkaas in wax laga bedelo ay khasab tahay sidee wax looga bedelayaa weeyo su'aashu koow intaadan muruqa maal gashan maskaxda maal gasho oo wax baro oo cidii waxaan dadka barta ka faa'iideyso cidda dadka wax baraysa haddii aad ka faa'iideysatid xog badan baad helaysaa sidoo kale idinka dadka inta istaqaana ee isku deegaan joogta ee macdan raadiyaasha ah isu imaada duruufaha aad macdanta kala kulanteen ka sheekaysta isla qiyaaso isla jaangooya taasna waxaa idinka dhaxdhalanaya xog caalami ah haddii macdanaha aad haysaan la xaqiijiyay oo la hubiyo iib loo heli karo isu tag sameeya oo waliba cidii aqoon idinku dhaanta oo la taga oo share isku darsada oo wixiina isu keensada oo qaaba wax wada dhoofsan kartaan sameeya oo dawladda arliga ka jira way fududeyn karaan shatiyo sida dawladda dhexe ee Soomaaliya oo kale shati caalamka wadano badan ay aqoonsan yahay caalamka ilaa 175 wadan ay aqoonsan karto oo macdanta way bixin kartaa wasaaradda la shaaciyay oo macdanta iyo tamarta baa jirta la xiriira shatiya qaata wasaaradaha ganacsiga shatiya ka qaata bad iyo biriba saad sharing waxa ugu dhoofsan lahaydeen ka fakara kun qof oo beer $10 la baxday oo macdanta ku sheer garowday $10,000 bay isu keensadeen waxay qaadan karaan shati macdaneed sidoo kalena waxay heli karaan in ay waxun ka faa'iideystaan awoodooda dhaqaale sidoo kale waxay isu keeni karaan qofkiiba hadduu 10 qof oo macdanta baadha uu leeyahay oo saaxiibo ah 10,000 qof waxay keeni karaan intaas macdanood oo kala duwan oo taasna waxaa ka dhalan kartaa intaas macdanood markii la keeno 10,000 oo beer qofkiiba uu keenay kaba soo qaad beer 10 dhagax waxay noqon kartaa 100,000 oo dhagax 100,000 oo dhagax marka halka la keeno waxaa ka soo bixi kara ilaa 60,000 oo dhagax oo noqon kara dhagax muhiim ah sidoo kale waxaa ka soo bixi kara ilaa 20,000 oo dhagax khasaare ah waxaa ka soo bixi kara ilaa 19,000 oo dhagax aan waxba muhiim ahayn waxaa ka soo bixi kara ilaa iyo 2,000 oo dhagax aad u qaali ah taasoo la isu keensaday oo saaxiibo badan isu keensadeen waxa ka soo baxaysa xog muhiim ah sidoo kale aqoontii 10,000 oo qof dhibtii ay la kulmeen ay isu keenayaan sida la adligeed experience-gii ay heleen ayaa waxa ka dhax abuurmaya aqoon sidoo kale mid walbaaba meesha uu wax ka soo daawaday xogtii uu ka soo daawaday ayaa waxay ku biirinaysaa midka kale xog sidoo kale xogaha markay isu tagaan waxa ka dhax dhalanaya hal abuur sidoo kale dadka Soomaaliyeed macdan badan bay ka raadinayaan meel walba macdanta la raadiyaa ma ahan wax tira badan mana ahan wax marka hore aragti lagu qiyaaso waa wax aasaar yar oo la helo oo wax oo marka la isu geeyay ayaa macdanta la soo saaray sababtoo ah macdantu qaali may noqoteen subscribe gareey barnaamijka la gareey barnaamijyada ma sugu imaan doona waan mahadsantiin